Puntland iyo Somaliland ayaa 8 qof oo siyaabo kala duwan ay u kala qabsadeen labadaasi dhinac ayaa maantay la kala wareegay. Warbixinta warkan waxaa magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ka soo diray Axmed Xuseen Axmed Sheekay. Gudoomiyaha gobolka Nugaal ee Puntland Cumar Cabdullaahi Faraweyne iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer ee Somaliland Maxamed Cabdi Qabyo ayaa maanta 8 ruux oo shacab iyo gaadiid muddo lagu kala haystay gobolada Nugaal iyo Togdheer ee Puntland iyo Somaliland kula kala wareegay xuduudka labada dhinac. Ganacsada jaamacadda dheere oo goobjoog ka ahaa halka lagu kala wareegayay dadka shacabka iyo gaadiidka ayaa labada dhinac ku adkeeyay in laga shaqeeyo wanaagga shacabka. Somaliland iyo Puntland laba maamul oo deris oo walaala oo helo way oo derisnimo iyo walaalnimo iyo sharaf iyo karaamo ka dhaxayso oo wixii xagga galana Somaliland galana la soo celiyo wixii Puntland galana la soo celiyo yaana kala bahalkeen yaana la isku nadaamin yaana la isku bahalkeen yaana la isku diray. Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faraweyne oo kala wareegay dhinaca Somaliland dadka iyo waliba gaariga laga haystay dhankooda ayaa sheegay in taariikh cusub ay u bilaabatay labada maamul. runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamulka gobolka Togdheer dadaalkii ballaarnaa oo mas'uuliyadda lahayd oo kartida lahayd oo ay sameeyeen oo rabshadii xaggaas ka dhacday oo dadaan waxba galabsan lagu afduubay ay keeneen runtii uga mahadcelinayaa annaga laftiga iyagu taas hadee ma dadaal yareen oo kuwa xagga jira waa keenay waa samaanana waa mahadsannahay waxaan ka gudoonay wiilkii xagga jiray iyo gaarigiisii waxaan kaloo ka gudoonay 4 oday 3 oday iyo ninkii dhibanaha ahaa oo sheeganayay in wiil Garowe laga haysto arintaasna waxaan rajaynayaa si cadaalad ah islaantinimo Soomaalinimo derisnimo saaxiibtinimo wada dhalasho aan ku xalino ilaa hortii waa ballan qaadaynaa waxa la yiri aan wada hadal lagu aan heshiino waxaan ballan qaadayaa anigu dhinacayga iyo waliba dhinaca kale aan kalsoonahay wixii labada shacab dhex mara inaanu sidaas oo kale meel madal ah iyadoo la isjecel yahay aan ugu soo ururino. Gudoomiyaha gobolka Togdheer ee Somaliland Maxamed Cabdi Qabyo ayaa dhankiisa ballan qaaday inay ka shaqeyn doonaan sidii labada shacab la isugu furi lahaa maanta wixii ka bilowda. waxa sharaf noo ah maanta farxad inaanu isugu nimaadno oo aanu si nabada dadkayagii shicibka isku socodkoodii aanu maanta ku xalino dhexdayada anagoo gacmo haysaysanna inaanu isu gudbino oo aanu si nabada isugu gudbino anagoo ah labadii gudoomiye gobolka Nugaal iyo gobolka Togdheer sharaf bay noo tahay gudoomiye waxaan kugu wareejinayaa oo halkan kugu wareejiyay imika inankii la afduubay oo 2 habeen 3 habeen ku afduubnaa gobolka aan ka taliyay Togdheer waxaan kaloon kugu wareejiyay inanka wiilka la isku hayo dhalay ee ah deeq iyo odayaashiisi hadduu xaq leeyeen anuguba horeba kiiska waan u galay waxaan islayn qolada Somaliland ba xaq leh nimankii ka yimid gaalka ayaa xaq yeesho wuxuu diiwan siin waxaanu ka rabnaa wixii aanu sameynay oo kale gudoomiye in ninkaas hadduu xaq leeyeen xaqiisa aad soo siiso ilmaha isagu leeyahay haddii laga xaq darayna si sharci oo shareeca labadan inay la socdaan nin waa garsoore nina waa sharci yaqaan xagga ahkaamta labaduba goobjoog bay ka noqon doonaan waana odayaashiisi hadduu wax yeelan waayo iyaga qabanaya hadduu wax yeeshana waxaan ka filaynaa Cumar Faro waxaanu ka filaynaa inaad gacanta ka soo saartad soo galbisad waliba saas oo kale noogu keento kartidii waad leedahay barsaabkii ka horeeyay waa woodi waaye inuu xiriirka noo soo sameeyo laakiin waa ku faraxsanahay adiga inaad xiriirka noo sameeyso geesinimada waliba halka aynu isugu nimaadno aad iyo aad baad sharaf ugu leedahay. waa markii ugu horeysay ee Puntland iyo Somaliland ay la kala wareegayaan dad shacab ah iyo gaadiid labada dhinac ay kala haysteen. Axmed Sheekay warbaahinta SBC Garowe.